بسم الله الرحمن الرحيم سو دhowaad arday maantana waxa galeynaa casharkeeni labaad cutubkeena koowaad casharkiisi labaad waxaan awal soo dhiganay cutubkeena koowaad casharkiisi koowaad maantana waxaan dhiganaynaa casharkeeni labaad cutubkeeni koowaad marka halka waxay noo noqonaysaa casharkeena labaad waa cutubkeena koowaad casharkeena labaad oo waxaan soo dhiganay casharkeeni koowaad hadii alla idmo maanta wuu xoog saari doonaa waxaan arki doonaa maanta insha Allah waxa la yiraahdo jibaarada iyo waxa la yiraahdo logaritmka waxaan arki doonaa insha Allah xeerarka jibaarada waxaan arki doonaa insha Allah waxa la yiraahdo qormo sayniseed marka loo qorayo tirada iyo logaritmka saddexdaas oo insha Allah xoog saari doonaa marka dambayso layliya kana waa natiijooyinka casharka filayna hadii alla idmo casharkeena marka inoo dhamaado hadii alla idmo hadaynu dhex galno casharkeena waxaan arki doonaa waxa la yiraahdo xeerarka jibaarada xeerarka jibaaradu waa inta halka inoo ka muuqata hadaynu ka bilowno xeerka koowaad oo la yiraahdo xeerka isku dhufashada aan ka bilaabana waxa la yiraahdo xeerka isku dhufashada xeerka isku dhufashadu waxa weeye sida inoo muuqata hadii inoo leeyahay hadii salka labada tiro ay isku mid yihiin su'aalaha hadda maxaan haysanaa a ku jibaaran m oo lagu dhuftay a ku jibaaran n baynu haysanaa waa a ku jibaaran n iyo a ku jibaaran intaas aynu haysanaa aan xeerka isku dhufashada kuwan waa salki kuwanna waa jibaaradii marka ay saatahay waxaan u qori karnaa tirada salka waxaan ka qaadanaynaa maadaama ay isku mid yihiin macni a iyo a yihiin waxaan ka qaadan karnaa hal waxaan qaadan karnaa a jibaaradana waa isku daraynaa waxaan leenahay m lagu daray n laakiin shuruud waa inay salkan tirooyinka salka hadda waa a iyo a waa inay isku mid yihiin taasa waxay tahay waajib mar hadday salku isku mid yihiin xeerkana isku dhufsho laba tirana waa isku dhufsan yihiin salkuna isku mid baan ka qaadanaynaa jibaaradana waa isku daraynaa xeerka labaad oo ah xeerka isku qaybinta xeerkeena labaad oo xeerka isku qaybinta xeerka labaad xeerkan isku qaybinta waxa leenahay hadii labada sal isku mid yihiin waa a oo loo qaybiyay a ka jar hadii labada sal oo labada tiro salkoodu isku qaybsan yihiin waxaan ka qaadanaynaa salka hal mid jibaaradana waa kala jaraynaa waxa leenahay maadaama a iyo a isku mid yihiin waxaan ka qaadanaynaa hal markaynu hal ka qaadano salka jibaaradana waa kala jaraynaa waxaan leenahay m laga jaray n maxaan ka qaadanay salkii hal mid baan ka qaadanay oo a ah kadib maxaan kala jarnay salkii hal baan ka qaadanay maxaan kala jarnay jibaaradii ka ku xiga oo saddexaad wuxuu inoo yahay xeerka jibaarka jibaaran macnaheedu waxa weeye xeerka jibaarka jibaaran wuxuu inoo yahay kan si halka inoo ka muuqata wuxuu inoo leeyahay a oo ku jibaaran m oo misna ku sii jibaaran n macni kan waa jibaar kana waa kaasoo ku sii jibaaran yahay marka ay saa inoo tahay waxaan u fududeynaynaa oo inoo leekaanaya waxaan isku dhufanaynaa labada jibaar oo a waxay inoo noqonaysaa m lagu dhuftay n macni waxaan isku dhufaynaa labada jibaar kana waa jibaar kana waa jibaar waxaan isku dhufanaynaa labada jibaar marka aan fududeyno xeerkeena inoo ku xiga oo afar inoo ah kan dhib weyn ma leh tiro kasta waxa la jibaarka eber kan waxa la jibaarka
eber tiro kasta oo ku jibaaran eber waxay noo leegtahay hal tirada inta rabtaa leekaad ama milyan haat ama 2 milyan haat tiro kasta oo ku jibaaran eber maxay noo leegtahay eber kayna ku dameeyana waxa leenahay hadii jibaarkeena noo yahay keena shanaad jibaar 10 macni waxay noo leegtahay waxayna haysanaa waa -m hadaynu rabno inaynu ka baabiino minuska tiradeeda waynu kala rogeynaa waxa leenahay hal baynu korgeenaynaa hal loo qaybiyay ku jibaaran m markaynu kala rogno oo hal filkeena tirada waxa ka baaba'aya waxa la yiraahdo minuski waxay noo noqonaysaa hal loo qaybiyay ku jibaaran m hadaynu tusaalayaasha u gal fududay baa leenahay labada tiro hadda ka koowaad waxa leenahay yiri fududay labada tiro waa isku dhufsan yihiin tusaale tusaaleheena koowaad labada tiro hadda koowaad maxaynu haysanaa xa laba jibaaran oo lagu dhuftay xa 3 jibaaran way isku dhufsan yihiin labadeena tiro hadii ay labadeena xeerka aynu soo dhiganay hadii isku dhufsan yihiin labadeena tiro macni salkoodu isku mid yahay waxa laga qaadan jiray hal macni labada tiro hadii isku dhufsan yihiin waxa laga qaadan oo salku isku mid yahay hadda waa xa iyo xa waxaan ka qaadanaynaa hal jibaaradana waa isku daraynaa oo xa markaan qaadanay jibaarka koowaad waa 2 oo lagu daray jibaar macni jibaarkan waa 2 kana waa 3 markaas ku sii darna waxay noo noqonaysaa xa ku jibaaran 5 waa xeerkeena isku dhufashada marka dib u noqotay hadii labada sal tirada labada sal isku mid yihiin oo isku dhufsan yihiin halka qaado jibaaradana isku dar kayna ku xiga waxayna haysanaa waa isla isagi maxayna haysanaa 5 ku jibaaran xa ku jibaaran 5 iyo xa ku jibaaran 2 labadana labada tiro hadii isku dhufsan yihiin oo salkooda isku mid yahay halka qaado jibaaradana isku dar waxaan dhaynaa xa lagu daray yani 5 lagu daray 2 maxaa yeelay xaadi hal baynu ka qaadanay jibaaradana waa isku darnay halka waxayna soo baayay xa ku jibaaran 7 kayna ku xiga waxa leenahay c waa a ku jibaaran 6 oo loo qaybiyay a ku jibaaran 4 waxaynu xeerkan waxaan soo sheegnay hadii labada tiro isku dhufsan yihiin salkooduna isku mid yahay halka macni kala jaran yihiin isku qaybsan yihiin ka wada hadii labada tiro isku qaybsan yihiin salkooduna isku mid yahay mid ka qaado macni labada eeda mid qaado jibaaradana kala jar waa hadii qayb meesha taalo waxay noo noqonayaan marka 6 laga jaray 4 sida daraadeed waxay noo noqonayaan hal baynu ka qaadanay salki jibaaradana waa kala jarnay 6 laga jaray 4 marka 6 4 laga jarana waxay noo soo baxaya 2 ku jibaaran 2 bayno soo baxaya taana tamnigaas aynu u fududeynaa su'aalaha ku xiga waxa leena yiri fududay xeerarkeena baynu dabaqaynaa su'aalaha ku xiga waxa la fududee maxaynu haysanaa waa keenaysaa inuu ahayo kale aynu eegaynay xeerkeena inuu ahaa ku jibaaran tiro 10 macni meelis maxaynu u qori jirnay hal koreeyaa aynu goyn jirnay tiradana hoos baynu ka heli jirnay maxaa ka baabi'i jiray marka minuska tan waa sidii wax kala ma maxaynu leenahay hal loo qaybiyay ila qaabkaas inuu qoraynay hal loo qaybiyay tiradana hoos bay imaanaysaa maxaa ka baaba'aya marka waxaan leenahay xa 3 jibaaran hal baynu korgeynay inagoo xeerkeena ka raacayna tiradana hoos baynu soo marinay markaan hoos soo marina maxaa ka baaba'aya calaamadii minuska ahayd ka ku xiga oo b xa ku jibaaran 0 maxaynu soo sheegnay tiro kasta oo ku jibaaran 0 qiimaheedu maxay noo leekaa waa hal marka halka maxay noo soo baxaya wax kan ugu fudud tiro kasta oo ku jibaaran waxay rabtaa 20 ku jibaaran 0 hadaa aragtid waa hal saawayna la socod marka hadda xa ku jibaaran 0 maxay noo soo baxaya hal kan inoo ku dameeya maxaynu haysanaa c waa a ku jibaaran 2 oo loo qaybiyay
ee ku jibaaran 4 waynu soo dhagnay waxay laba tiro hadday isu qaybsan yihiin oo jibaar salkooduna isku mid yahay waa isku qaybsan yihiin salkooduna waa isku mid hal baynu ka qaadan jirnay ba jibaaradana waynu kala jar jirnay maxay noqonaysaa hadda 2 laga jaray 4 inoo sii soco labada inoo kala jar hadda minuskiya wato waa 4 kana muxuu wataa plus labada tiro hadday kala calaamadihiin waa la kala jar jiray maxaa la qaadan jiray tirada weyn calaamadeeda sidaa daraad halka waxaa inoo soo baxaya -2 ee ku jibaaran -2 waynu sii fududayn karnaa inagoo kan eegayna saynu minus uga baabino waxaan leenahay hal baynu kor geyn jirnay tirada tan hoos bay ima jirtay marka waxay noqonaysaa 2 ku jibaaran 2 oo waxa ka baaba'aya waxa la yiraahdo minus ki hadii aynu sii fududayno keena inoo ku dambeeya maxaynu haysanaa d na maxaynu haysanaa ee ku jibaaran 3 oo laga jaray ee ku jibaaran 3 labada tiro hadday kala jaran yihiin oo salkoodu hadday isku qaybsan yihiin baan ka wadaa oo salkoodu isku mid yahay hal baynu ka qaadan jirnay jibaaradana waynu kala jar jirnay hadda waxa leenahay 3 laga jaray 3 ee waxaynu leeyahay hadii 3 laga jaro maxaa ku soo baxaya waa eber tiro kasto ku jibaaran eberna maxay loo leeyahay hal saasaadu si wadaysa hadda hal mar ku celi waxa leeyahay tirada tan hadda aragtid waa xaq ku jibaaran -3 marka rabtid inaad minus ka baabisid hal ba kor geynaysaa intan waxay imanaysaa hoos minuskana waa ka baabaya kan kala tiro kasto ku jibaaran 0 maxay noo leeyahay hal kan waxa ay labada tiro hadday isku qaybsan yihiin salkooduna isku mid yahay a iyo a maxaan ka wadaa waa a salkoodu isku mid yahay isku qaybsan yihiin salka hal mid ka qaado baawaradana kala jar baawarka kuwaad waa 2 laga jar 4 markaynu 4 laba ka jarna 4na way kala jarmayaan waa -2 maxaa yeelay tirada tan wada calaamada weyn kadib waynu soo kala rogaynaa saynu minus ka baabino inuu qaabkaas u kala raacayna kana waa sidoo kale labada tiro maxay yihiin labada tiro waa salkooda isku mid ah hal ka qaado salka kadibna waxa kala jartaa baawarada 3 laga jaro 3 waa eber tiro kasto eber ku jibaaran maxay noo leegtahay hal waxaanu u gudbaynaa insha Allah waxa la yiraahdaa casharkeena kale oo la yiraahdo qormo saynis kan haddaan inta ugu gudbo maxaynu haysanaa qormo saynis haddii la yiraahdo qormo saynis waa tiro leeg ama ka weyn kana yar hal kana yar 10 macnaheedu waa tiro waa qormo saynis waa tiro leeg ama ka weyn sideedaba qormo saynis waxa loo isticmaalaa marka la rabo tiradu markay number weyn tahay oo kale in hab fudud loo qorto hab fudud ka caawinayo waxa leenahay qormo saynis marka waxa muhiim ah inaad fahantid numberkaas ee waa tirooyinka u dhaxeeya 1 ilaa 9 markii qormo saynis qori doon hadii la hayno kan waa 10 ka inoo noqonaya halkaas tirada naadana waxay inoo noqonaysaa hab jibaarka tiradaas oo leegta hadhowdi markaynu qormo saynis u qorayno inoo leekan doona hadii la hayno su'aalaha koowaad hadaynu galno u qor tirooyinka soo socda qormo saynis waxaynu hadda haysanaa su'aalaheena koowaad oo kale 8 ana haysanaa 8 bayna haysanaa marka aynu rabno inaynu tirada u qorno waxa la yiraahdo qormo saynis waxaynu ka soo bilaabaynaa marka koowaad halka ah waliba tiradu ay noo tahay tiro plus ah usan waxba jajabna ku jirin wax jajaba usan lahayn waxaan ka soo bilaabaynaa halka ah waxaan leenahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 macni waani ku lahaa tirada halka taala waxa u dhaxaysa 1 ilaa 9 waa wadaysaa ilaa inta numberka ka gaaraysa inta numberada markaan saadhana waxa leenahay 8 ku jibaaran 10 keen sheegayna waa ka 10 baynu ku dhufsanaynaa marka waxaan ku xisaabtamaynaa intaynu soo guurin su'aalaha maxaynu soo guurnay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 maxaynu soo guurnay 4 talaabo mawjad halka maxaynu marka koowaad tirada qormo saynis waxaynu ka soo bilaabaynaa halka 1 2 3 4 waxaana 8 lagu dhuftay 10 jibaarakana waa inta talaabeen soo guurnay waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 markaas waxaynu ku noqonay marka eber haday tahay waa ka tii kartaa wax dhiba macnaha kugu yeelamayso ka ku xiga oo biideena ah maxaynu haysanaa waa 9 iyo 1
kan maxaynu ka soo guuranay ilaa tiradii baa xagga ina ka xigtay numberkan caadiga saanu soo soconayn kan waxaanu soconaa dhinacan ilaa aynu tagno waxay leenahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ma ujeedaa numberka halkaas muxuu dhaxaynayaa 1 ilaa 9 saadana waxa leenahay 9 dhibicdan halkaas aynu geeyno halkaas oo lagu dhuftay 10 haye imise talaabeen u guurni marka aynu dhinacan soo aadno xaga markaynu soo aadno waxaynu baawarkeen ay jibaarkeen waxaynu noqon doonaa plus laakiin marka aynu dhinacan aadno jibaarkeen waxaynu noqon doonaa wax la yiraahdo minus saadaraad waxaynu guurnay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 halka maxay noo soo baxaya minus 4 inoo noqonaya jibaarkeen markaynu dhinacan xaggan markaynu aadno laakiin markaan xaga soo tagno jibaarkeen waxaynu noqday 4 marka waxa ka bilownaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waxaynu guurnay 4 talaabo tusaalaha kale inoo ku xiga maxaynu haysanaa si 25,000 haye xagee ka bilaabna stepkeena kan xagga dhinacan aynu ka bilaabeen waxa leenahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 aka wuxuu dhaxayaa 1 ilaa 9 inta nambarada macni waa inuusan dhaafin waxa leenahay aan qaadanaynaa 10 inoo yahay silkeeno imisa talaabeen soo gurno 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waxaan noqonaynaa marka halka 4 talaabo jibaaran waa intaas inuu ku taagan yahay afartaas waxaynu gudbaynaa casharkeena ugu dambeeya logaritmka marka loo bedelayo waxa la yiraahdo waxaan logaritm bedelinaa logaritm markaynu bedelayna waxa la yiraahdo jibaar waxaan leenahay log wuxuu noo leeyahay kana waa logikaasna waa markaynu rabno inaanu bedelno waxa la yiraahdo loggeena markay rabno waa inaanu bedelno waxa la yiraahdo jibaar kana waa loggeeni wuxuu inoo ku qormayaa oo inoo noqonayaa la soco waxa isbedelaya kan wuxuu noqonayaa sidaas halka inoo taala kan waa logan wuxuu inoo noqonayaa a ku jibaaran oo kan waa salki a ku jibaaran si oo numberka halka inoo yaalo inoo leeg loga waxaan nidhi markaynu qorayno kan waa logeen caadiga waxaan leenahay kan waa basekeeni oo ku jibaaran numberka halkaan soo qaadana si oo inoo leeg logeen halka inoo soo baahi tusaale u bedel jibaar ahaan baa leenahay hadda maxaan haysanaa jibaaraan hadaynu loga inuu qorayno logenda koowaad waxaynu haysanaa log leeyahay 3 hadaynu raacno waxa la yiraahdo talaabooyinkeena hadaynu soo dhiganayno waxa leenahay kan waa 3 oo ku jibaaran numberka halka ku yaala oo inoo leeg logeena soo inoo ah 9 soo la socdalka waxa leenahay kan waa numberkii salka ahaa oo ku jibaaran numberka halka ku yaala oo inoo leeg logeena soo ah 9 haba wixii halka ku yaala kan ku xiga maxayna haysanaa b maxayna haysanaa log 5 log base 5 يعني salkiisu waa 5 625 oo inoo leeg waxa la yiraahdo 4 markaynu rabno markaynu inaan u bedelno jibaar ahaan waxay leenahay kan waa salkii 5 oo aynu ku jibaarnay numberkaas maxay noqonayaa 4 oo inoo leeg logeen maxay inoo yahay 625 kayro ku dambeeyo c aynu haysano maxay inoo noqonayaa log salkiisu waa maxay waa 10 logana maxaan haysanaa 100 inoo leeg 2 markaynu u bedelayno waxa la yiraahdo jibaar maxaynu leenahay 10 waa salkii oo ku jibaaran numberka halka ku yaala muxuu noqonayaa halkaas waa 10 oo inoo leeg logeen muxuu noqonayaa markaa waa 100 intaasina uga gudubnay logaritmkeena markaynu u bedelayno qaabka saas inoo yahay casharkeeni labaad laylageena ku xiga wuxuu noqonayaa u bedel jibaar ahaan kaas inuu garanayna insha Allah baraan wixii noo soo baxaya si soco log kana waynu garanayna insha Allah wax inuu leeyahay si soco kayna ku xigana waa saddexdaas u bedelaysa jibaar
ahaan layliga kale oo ku xiga waa u qor tirooyinka soo socda qormo saynis maxaan haysanaa 160,000 waxaana wax u qoraysaa qormo saynis ahaan labada tiro iyo layliskana ku dambeeya fududay waxaan haysanaa numberkiisa ku jibaaran sir waa garayna wax yahay kaana waa soo dhiganay labada number jibaarkana waa soo dhiganay intaas maanta cashirkeenu ku yahay waa mahadsantiin